السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوال 24/4/1447 هجرية ku beegan 13 bishii afraad 2026. isku eedeyn u dhexeeya Iran iyo Mareykanka kadib fashilkii wada hadallada. kaas waxaa qodobka ugu koowaad wasiirka Iran Abbas Araghchi inay Tehran ay ku dhawaatay inay heshiis la gaarto United States intii lagu jiray wada hadalladii ka dhacay Islamabad dhamaadkii isbuuca, laakiin wuxuu ku eedeeyay Mareykanka inuu fashiliyay wada hadallada. Iran waxay u gashay wada hadallada si daacad ah si loo afjaro colaadda. markii ay ku dhawaayeen heshiis, Mareykanka ayaa bedelay mowqifkiisii adkeeyay shuruudaha, isla markaana kordhiyay cadaadiska. jawaabta Iran sidoo kale, gudoomiyaha baarlamaanka Iran Mohammad Bagher ayaa sheegay in Mareykanka uusan awoodin inuu kasbado kalsoonida Tehran. kaas qodob war dhanka Mareykanka, mas'uuliyiin United States ayaa dhankooda ku eedeeyay Iran inay diiday shuruudaha muhiim ah, sheegay in Iran sabab u tahay burburka wada hadallada. gunaanad labada dhinac ayaa midba midka kale ku eedeynaya fashilka, inkastoo wuxuu sheegay inuu ku dhawaa heshiis. kalsooni darada waa caqabadaha ugu waaweyn. Iran iyo Mareykanka mid kale ku eedeynaya. walaal intaas kusoo gabagabeynaya qodobkan. war degdeg hadda naga soo gaaray ayaan ku darayaa maantana war degdeg na soo gaaray ayaa hadda waxay sheegayaan inta u dhaxeysa cadaadiska Donald Trump iyo hanjabaadka Tehran. tan waa qodobka labaad. dunidu waxay neef qabtaa agagaarka marin biyoodka Strait Hormuz. Axios ayaa soo xiganaysa mas'uuliyiin Mareykan ah. wada hadallada joogto ah ayaa u socda United States iyo Iran. horumarka waxaa laga gaaray dadaalada heshiis lagu gaarayo. waxaa jiro xiriir heshiis joogto ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Iran, iyadoo la sheegayo in horumar laga sameeyay dadaalada heshiis lagu gaarayo. Washington ayaa soo jeedisay in Iran ay joojiso kobcinta uraniumka muddo 20 sano ah. dhanka Iran ayaa kasoo jawaabtay iyadoo soo jeedisay in la joojiyo muddo ka yar 10 sano. wafdiga Tehran ayaa sidoo kale soo bandhigay ikhtiyaar kale oo ah in la sameeyo yareyn tartiib ah oo kobcinta uraniumka ah, iyadoo loo saarayo kormeero caalami ah, halkaas oo si buuxda loo joojin lahaa muddo dheer. Iran ayaa waxay rumaysaneyd inay aad ugu dhawaatay heshiis hordhaca subaxnimadii Axadda, balse waxaa si lama filaan ah uga yaabiyay hadal uu jeediyay JD Vance oo ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, kaasoo si weyn uga caraysiyay Tehran. walaalayaal intaasaan kusoo gabagabeynayaa labaas qodob degdeg oo hadda lagu heshiiyay. dhowr qodob hadda akhrinayay iyo kii hore qodobka labaad. walaalayaal intaasaan ku egahay. insha Allah wixii oo soo kordhan waa in la soo socodsiin doonaa war sugan. nabaddiino. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. channelkan hala taageero.